wanaagsan khiyaarta waxaan saaka rabaa inaan maartay ka qayb qaato ama soo booqday Sara Gym and Soul Gym oo ah goob jimicsi ama jidhis ama habka maartay bini'aadamka jirkiisa uga shaqeeyaan. Goobta waxaa laga furay magaalada Laascaanood muddo dheer ka furnayd saad aragtaan dhalinyarada ku jimicsata. markaa saaka ayaan seenahay haddii Ilaahay yiraahdo xogay jimicsiga ku qaata aniyo maay walaalkay Adnaan subaxnimo wacan insha Allah wixii gudahana waan la wadaagi doonaa markaa lagu soo dhawaado dalka kasoo laga helaya. As you push the ball of feet into the floor, you're automatically going to go back up, okay? khiyaarta cabaarada maxaa qayb kamid ah jimicsiga maxay dhiigga qaajinta mise soo kicinta xaaladaada jirka Move right. Move left. All right, keep staying with me. And now watch this. Ready? Stay here. هاي هذا تحاول تسوي من القلب كي كان بنانا حل برق النظام وحاسلير توسو كي هاي marka waa yaro kamida jimicsiga gudaha. Assalaamu calaykum, saad aragtaan jimka waxaa yaala hadda yaala qalabkii murqaha lugaha iyo garbaha dhisayay kii baaskiilka ahaa kii lagu ordayay baa yaala treadmillka loo yaqaanay waxaa yaala kii bike climbingka ahayd amase salaanka ahayd oo kale ayaa taala. waxaa kaloo yaala kii dumbbellska iyo murqaha iyo lagu qaadayay sariirtii benchkii waxaa kaloo yaala benchkii kale six pack lagu diyaarin jiray kii kale maartay fadhiga haya yaala waxaa yaala kii kale treadmillkii climbingka ayaa buurtoo kale ahaa kuwii jaranjarooyinka ahaa sauna tableskii baa yaala oo baag la dhex geli jiray oo baruurta ridi jirtay muraayadii la iska dhex arki jiray baa taalla marka qalabka dhammaantiis wuu shaqeynayaa alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaana la keenay isla magaalada dee Laascaanood baad ka helaysaa markaa ha lagu soo dhawaado hana la yimaado caafimaadkana laga shaqeeyo qaybtii qabayska waxa uu leeyahay qaybtii dumarka wuxuu leeyahay muraayadihii gudaha marawaxadihii horumarkaasoo dhan wuxuu yaalaa Laascaanood gudaheeda waa markii markaa Soul Gym aad iyo aad ha loogu soo dhawaado insha Allah waxa weeye waa meel aad ka helaysid caafimaad badan iyo sixo badan oo xagga jimicsiga ah waadna mahadsantihiin insha Allah waa idin salaameynaa waaniyo walaalkay Adnaan yare